Tani waa qisada Duane Jan. Waa ganacsade asal ahaan ka soo jeeda Kuuriyada Koonfureed balse ku tanaaday dalka Mareykanka. Waa shakhsi waardiye ka ahaa goobaha dhirta gawaarida balse maanta ah mid ka mid ah bilyaneerada ugu caansan dunida. Duane Jan wuxuu ku dhashay Kuuriyada Koonfureed taariikhdu markii ay ahayd bishii Maaj 20keedii 1954. Yaraantiisii wuxuu ahaa mid jecel waxbarashada, wuxuuna ku guuleystay inuu ka qalin jabiyo dugsiga sare. Inuu galo jaamacadda way suurtagali weysay, dhaqaale la'aanta haysay ayaana hamigiisii waxbarasho soo gunaanatay. Balse wuxuu go'aansaday inuu la yimaado dadaal iyo hawlkarnimo si uu u helo dhaqaalo. Wuxuuna Duane Jan bilaabay inuu shaaha iyo cabitaan ku iibiyo mid ka mid ah jidadka caasimadda Kuuriyada Koonfureed ee Seoul. Duruuftaana kama hor istaagin inuu guursado, wuxuuna xaaskiisa ka dhigtay Kim Soo Chan, waxayna labadooda noqdeen kuwo si laba jir ah u hawlgala isla markaana leh hadaf qura oo uga baahan dadaal iyo karti. Waxayna sidoo kale si wada jir ah u ururi jireen lacagta ay soo shaqeeyaan, waxaana 1981dii u suurta gashay labadooduba inay u dhoofaan gobolka California, gaar ahaan magaalada Los Angeles ee dalka Mareykanka. Markii ay Mareykanka gaareen, muddo dheer ayay ku jireen xaalad shaqo la'aan ah, waxayna intaas isticmaalayeen lacagtii ay kaydsadeen markii ay joogeen Kuuriyada Koonfureed. Laakiin ugu dambeyn lacagtaas way ka dhammaatay. Caqabado dhowr ah sida shaqo la'aan iyo luqadda Ingiriiska ku adkayd, laakiin Duane Jan wuxuu mar kale qaatay go'aan la mid ah go'aankii uu qaatay markii uu ku sugnaa dalkiisa hooyo. Wuxuuna bilaabay inuu ka shaqeeyo 3 shaqo oo kala duwan. Wuxuu ka shaqeyn jiray kaalin shidaal iyo goob lagu iibiyo kafeega, wuxuuna sidoo kale waardiye ka ahaa goob dhirta gawaarida. Laga yaabee inaad isweydiisaan goorta uu nasto ama uu seexdo, laakiin Duane Jan wuxuu ahaa mid seexda waqti aad u kooban, wuxuuna xaaladdan shaqo ku jiray muddo 4 sano ah. Asigoo ku jira ayuu helay fikradda ka dhigtay qofka uu maanta yahay. Duane Jan markii uu ka shaqeyn jiray waardiyahana ka ahaa goobta dhirta baabuurta, ayuu dadka wata gaarida qaaliga ah weydiin jiray waxa ay ka shaqeeyaan ama ganacsigooda ku saabsan yahay. Qofka uu arkay inuu yahay taajir lacag badan haysto, su'aasha kaliya uu weydiin jiray waxay ahayd, waa maxay shaqadaadu? Inta badan dadka uu weydiiyey su'aashaas waxay u sheegeen inay yihiin ganacsato dharka iibisa. Duane Jan ma uusan jeclaysan fikraddaas ganacsi maadaama uu khibradiisa lahayn. Wuxuu daaliyay maskaxdiisa in badan ayuuna ka fikiray inuu dhankan u jeesto. Wuxuu bilaabay inuu baaro isla markaana aqriyo wax badan oo ku saabsan ganacsiga dharka si uu u xalliyo khibrad la'aanta iyo aqoon darrada ka haysata. Muddo 4 sano ah ayuu baarayay isla markaana aqrinayay macluumaadka ku saabsan ganacsiga dharka, wuxuuna aqriyay buugaag badan oo ku saabsan ganacsigan. Ugu dambeynna isaga iyo xaaskiisa waxay go'aansadeen inay furaan dukaankoodii ugu horreeyay ee dharka, kaasoo ahaa mid yar oo ay ka fureen waqooyiga Los Angeles, gaar ahaan xaafad ay degnaayeen. Duane Jan wuxuu durba wajahay caqabado uusan kasii fikirin. Mushkiladda uu arkayay korkiisana waxay ahayd 6 dukaan oo ku agyaala dukaankiisa, dhammaantiidna lagu iibinayay dhar. Dhammaan dukaanadii ku agyaala waxay ahaayeen kuwo la daalaa dhacayay fashil ganacsi maadaama ay gadayeen dhar qaali ah, dadka deegaankana aysan awoodin. Duane Jan waa uu fikiray, wuxuuna go'aansaday inuu isbeddel sameeyo lana yimaado dhar jaban ama raqiis ah, isla markaana iibsan karaan dadka deegaanka. Fikraddaasi ayaana ka dhigtay dukaankiisa mid leh dhaqdhaqaaq fiican. Wuxuu filayay inuu sanadkiisa koowaad helayo $30,000 faa'iido ah, balse wuxuu helay lacag ku dhowaad milyan ama $700,000. Wuxuuna go'aansaday inuu ku socdo waddada saxda ah oo uu maro qofkii doonaya inuu xaqiijiyo guusha ganacsi. daawade ku soo dhawow channelkan, fadlan saar subscribe, furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horreeya ee daawada fiidiga. Fadlan saar like